turkigu dalka turkiga la yidhaah waa munaafiqa ugu weyn ee maanta caalam islaami ka jira. iiraan baa fahantay. iiraan waxay diiday in wada hadallo maaragtay iyaga iyo u dhexeeya maraykanka uu galwadeen ka noqdo dalka turkiga oo turkiga lagu qabto. cumaan bay tiri ha lagu qabto shirka maaragtay markii hore turkigu isu dhigayay inuu isagu maaragtay galwadeen ka noqdo. turkigu wax allaaliya wixii dal caalam islaami la burburiyaad garanaysid dhammaantood qayb buu ka qaatay. welibana ciidamada ugu badan ee maaragtay dalalka muslimiinta burburiyey ciidan waxa ahaan turkiya. nato waxa weeye waa maaragtay xulafadii burburisay 7 dal oo islaamay ka badan. ciidanka ugu badan turkiya ahaa. ciraaq, suuriya, maaragtay liibiya, afghanistan ciidanka maraykanku markay ka baxayeen turkidu waxay la joogeen ilaa ilbiriqsigii ugu dambeeyay askarigii ugu dambeeyay maraykan uu baxo iyaga kaga sii dambeeyay ilaa minidkii ugu dambeeyay maraykanku baxayay bay shacabka afghanistan ku wadeen xabadday leynayeen turkidu. markaasay muslimnimo kaaga sheekeynaya afghanistaniinta nimanka daalibaan ee afghanistan qabsaday iyaga laftirkoodu maaragtay munaafaqada turkiga si fiican bay u fahmeen maaragtay waa kuwii diiday in maaragtay ciidanka turkiga ay ka haraan ciidanka maraykanka sii joogaan afghanistan. sababtoo waxay fahmeen in askariga turkiga iyo ka maraykanka ay isku mid yihiin wax alaaliya u dhexeeya aysan jirin. shacabka afghanistanna ay si isku mid ah xabadda ula dhacayeen ay maaragtay u xasuuqayeen. sidaas si lamid ay ka sameeyeen liibiya, sidaas si lamid ay ka sameeyeen maaragtay dalalkii caalam islaamiyeed garanaysaan ilaa la burburiyey dhammaantood. waxay ugu dambeysay 2017 oo maaragtay ciidanka turkidu ay xasuuq ba'an ka geysteen ama u geysteen shacabka kurdida ah ee maaragtay reer Syria oo ay la dhacayeen maaragtay gantaalo iyo maaragtay diyaaradaha turkigu gelin u duqeydiyeen way ku dileen kumanaan kun maaragtay shacab muslimiin sunniyiina. marka turkigu cidda uu maanta uga sheekaynayo maaragtay walaaltinimo iyo islaamnimo waa ciidan fahansaneyn aan ogeyn. mid kalena kugu dare turkigu waa dalkii ugu horreeyay caalam islaam ee Israa'iil aqoonsada iyadoo caalam islaam dalalka islaamka oo dhan ay diidan yihiin Israa'iil ay turkigu keligii intuu kasoo dhex baxay uu safaarad ka furtay dhulkii maaragtay reer Falastiin ee maaragtay Israa'iil ay xoog ku qabsatay. sidoo kalena maaragtay ay safaarad uga fureen Israa'iil Ankara iyo maaragtay Istanbulna qusuliyad uga fureen. marka turkigu ciidan fahansaneyn buu maanta uga sheekaynayaa islaamnimo iyo walaalnimo. marka dadka aan fahansaneyn ee maaragtay ku jiraan dadka maaragtay masaakiinta ah ee Soomaaliyeed ee maaragtay fiqiyeynta la midka ah ee Xasan Sheekh iyo ay madaxda u yihiin yaan munaafaqada turkiga fahansaneyn ayaa u haysta maaragtay waxaan beenta ah uu sheegayay maaragtay muslimnimada iyo walaaltinimada wax maaragtay runa laakiin iyaguna dhawaan bay maaragtay ogaan doonaan xaqiiqada iyo maaragtay waxa turkiga maaragtay siyaasadda munaafaqnimada ee turkiga dalalka caalam islaamka dhex wada ee maaragtay imika inay fashilantaba waxa yar u jirta